weligaa ma maqasho idhaahda ah conceal your intentions oo micnaheedu yahay qarsoonow si aad sare ugu kacdo. kan waa xeerka saddexaad ee buugga 48 Laws of Power. waxaanan isku dayi doonaa inaan ku fahansiiyo qiso yarna kuugu soo gabagabeeyo. haddaba markaad qorshe leedahay oo ogolaan dadka kale inay si sahlan u gartaan waxaad damacsan tahay. dadku waa kuwo ka cabsada waxaan la garanayn. haddaad saacad u muujiso hamigaaga waxaad fursad siinaysaa kuwa ka soo horjeeda inay ka hortagaan. tusaale ahaan Louis oo ahaa boqorkii Faransiiska wuxuu bartay inuu mar kasta qarsoodi ka dhigo qorshihiisa siyaasadeed. markasta uu siiradiisu ay weydiiyaan waxa uu damacsan yahay waxuu si xeel dheer ugu jawaabi jiray waqtiga ayaa sheegi doona. arrintan waxay keentay in xitaa kuwa aadka ugu dhow aysan garan karin go'aamadiisa ilaa ay ka fulayaan. taasi waxay siisay awood uu kaga yaabsado cadowgiisa iyo saaxiibadiisa labadaba. ogow markaad qarsan niyadaada dhabta ah dadka kale ma ogaan karaan siday ku hor istaagi lahaayeen. biyaha xasiloon waxay qariyaan dhaqdhaqaaqa kalluunka. waxaana jiraan ka yafeen walaalkiisa Giya Maxamuud. aad iyo mahadsantiin saaxiibayaal.